حسن waxaad ahayd fanaaniintii muddo badan dalka ka maqnaa bal ugu horeyntii imise sano ayaad dalka ka maqnayd wadanka waxaan ka maqnaa 30 sanadood haye 30 sano ayaan maqnaa Canada Ingiriiska waa isku aragnay haye YouTube waa isku aragnay haye meel badan maaha 30 sano muddo aad u fog weeyaan intaas waa dabcan oo ognahay muddo badan baa dalka burbur ku soo jiray dib ayaa dalka ugu soo noqotay bal dareenkaaga haddii aad nala wadaagtid markii aad dib diyaaradii ku waday ay soo caga dhigatay garoonka weyne caalamiga ah aadan cabdulle aadan cadde siduu ahaa dareenkaagi maanta markaan soo degnay horta aniga waxaan la socday madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geyle iyo wafdiga uu ballaaran hogaaminayay aan la socday aniga iyo Axmed Cali Cigaal markaan garoonka soo degnay waxaan soo dhaweeyay wixii Soomaaliya folklore dancing waladii waa beeri barbaarti gaashaaman musicianka booliiska qaranka Soomaaliyeed macna xoogaa moral ahaan waa dareemaysaa de macnaha marka saas lagu soo dhaweeyo in wadankaaga sidii weli aad ayad laga jecel yahay macnaheedu aad iyo aad macnaha uu faraxsan maanta marka arkay shacabka meesha joogay say noo soo dhaweeyeen runtii aad iyo aad xasan muuqaalo aan baraha bulshada ka daawanaynay iyo telefishinada oo si toos loo daawanayo telefishin qaranka ugu horeeyay waxaa jiray kooxda Bambeyda mar aad la taagneed music maaragtay xusuus ku galiyay oo aad u jeedidba in maaragtay dareenkaagu isbedelay maxaa xasuus noocay ayaad gashay ma xasuus waxaa xusuusanaysaa dad waagii kacaanka haye oo booliisku waxay ahaayeen Bambeyda ku ugu khatarsan ahaayeen wadooyinka heesaha nijid ku bar jireen haye oo heesihii waa isla qaadi jiray ay si fiican soo inta tumaan wadada la mari jireen oo dadweynaha markii xabka 12 Oktoobar first July koodeedii maalinta shaqaalaha maalinta kida aad macnaheedu waad garan kartaa dhalinyaradan weli wada dhalinyarada dambe laakiin odayaashii hore ku jiray oo macallimiin u ahaa maanta aan ka arkay meesha sax marka runtii wax qiimo badan ay ahayd waana aad bay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad xasan samatar dalkii sidaad sheegtay 30 sano ayaad ka maqnayd intaasna warbaahintu waa la socotay waxaan aaminsanahay in dad badan oo qurbo joog ah sidoo kale in qalbigaagu ama niyadaada uu dalka joogay balse adiga shakhsi ahaan aad dalka ka maqnayd waxaa laga yaabaa in warbaahinada aad la socotay sawirro oo kala duwan oo dhibaatooyin iyo waxyaalo badan ay maaragtay marmar qaarkood baahin aad arkaysay marka aad soo imaatay sawir ceenkee ah ayaad wadatay adoo hadda saacado yar joogana maxaa ku baxay macnaha horta tan dadweynaha Soomaalida ummadan Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku hadasha sidii qiimeyntoodii iyo qadarintii ay u qabeen fanka sidii si ka fiican wadankiyo iska dhibaatooyin badan soo maray وليد كصعداء مارتي وهدوا صو كعيو معنيه ذاتك لكن شعب كنيته ذي ولي والنظيف والإسيني وصدي هو آمسين أما فن هالنقطة أما الدين تودي هالنقطة أما شقوي كودي يوضن شعيل كودي ذاتك واسدي ولي هذا أرتقل بولا بالغص والله بتي وضن كوارس أصل وصل ذقلي يعني مركا واحد قال له فرحة ورنتي في هذا الشكل إلى آمسين بعد أكثر كورة لكن مركا المانتا يمت وحيال بنا سكيب دلوقتي مقالة مقدشة مركا صوت حق الشيء يمركا أكتجيسي فرق النوعية يا أولى حاجة ما دودي مركا كتجي يوضن في الدولة ذاك السنة هي لكن ما أنت الدولة ذاك السنة هي هذا سكدة تاج هاي راتو هي أو ده لب كان بدنا دعية إيو وحيالها كالصعدة إيو اليوم بدنا سكان دعية يعني لكن ولد واسوس إن شاء الله واسكف عناد تهدي له يراد حسن سمتر وحلوه حسوستار أنت أنا قربها جبني أنا سيجار بي ما أردت هسها وحنو أها
dadka aada u dhegeysto aada u jecel mar walbana la socdo waxaa jirta hees caan ah oo adoo dalka ka maqan aada qaaday oo aada dhehayso bulsho yahay ma nabadba heestaasi bal horta inta aan ku oran maxay ahayd waxaan jeclaan lahaa bal markii aada soo gaartay magaalada muqdisho niyadaadii ma kusoo dhacday heestaas waa kusoo dhacaysaa sababta hees waxay ahaan jirtay markaan barnaamijyada ka dhigayay yurub iyo meelaha iyo maraykan kala dayn ayaan ku furi jiray bulshayahay ma nabad daba barinaya ma barideen adii macnaha hees waxay ahayd salaan ah macnaha laakiin maanta markay aan dareemayay oo markaan soo degoo kale waxaa diri jira meel stadium oo saasoo kale oo dee buuxoo kale iyo dee waa ku salaami lahaa oo ku qaadi lahaa ku qaadi lahaa waxaan dhihi lahaa last janiska u dambeeyey heestii way khalaas waxayo banaan hawdi boosaaso iyo bari berberiyo hargeysiyo beligii jamaamiyo amarbaaleedii meelbaagle kuwankoday baryan kala maqnayno waanidii basaase kushayahay manabadba kushayahay manabadba xasan aadan waxaa tahay fanaan heeso badan oo caan ah leh heesahaagu kulli waxaan ogahay in dadka midba midda ka dambeyso ay dadku aada u jecel yihiin qaab masraxeedkaagana dadka aada u jeclaayeen bal heesahaagii maadaamaan ogahay qofna inuusan wixiisa kala jecleen heese adiga dareen gaar ah ku leh haddii aada is leedahay ma aragti way jiraan hal iyo labo haddii aad nooga taabato fahmi heesaha oo dee ugu sii taariikhda leh maya taariikhda leh waa sida heesta beled weyn oo kale oo taariikhay leedahay iyo de heesihii kale ee dee riwaayadihii galbeed iyo waraf iyo shimbira iyo dee ani waxaan dhigay almost 20 riwaayadood aan dhigay macnaha heesahaas oo dhan riwaayadihii waagaas jiray waxay ahayn riwaayado awaanin dee waxay sameeyeen awaanin waaweyn baa samaysay sax marka waagaas fan u ahaa challenge jiray tartanaa jiray riwaayadan say ka noqon doontaa waxbaa jiri jiray laakiin maanta wixii waa adduunka isbedelay wadankii isbedelay dadkii waa isbedeleen fanka sidii hore wixii yara iska kaydsan bis heesihii horeyda wixii youtube internet meel kasta ku jiraan laakiin anagii xoogaa retire ayaa ka qaadan heesahaagii badnaa ayadoo ay dad badan xasuustaan heesteed baad is leedahay dadka ha kula soo xasuustaan haddii aan anaga ma aragtay fankaaga dib u raacno aan hees ka soo qaban heesahaaga ma aragtay anigu may iyo maxaa tiri waa ku heesa horta waan ogahay luqadda may iyo maxaa tiri soomaaliga waa may iyo maxaa tiri waa geli doonaa may maxaa tiri ku heesa marka heesaha labadaba macnaha ani heestii macnaha dee maya ugu dalabaadka badnaan jirtay waa heestan kuu sheegay waa beled weyn heestii hadraawi sameeyey cabdikariim jiir ayaa laxanka saaray oo hadda u jooga marka heestaasaa kolley dadku ay xasuusta u badan ay noqonaysaa waxaa tiri may iyo maxaa tiri marka mayga lasoo qaato fanaaniinta soomaaliyeed waxaa la oran karaa inaad tahay horseedka dhanka mayga heesaha qaada fanaanka ugu badnaa heestee baad is leedahay dhanka mayga haddaan aan maaragtay aadna heesta aad is leedahay dhanka mayga waa musalsal dheeraa waa heestii huburow iyo hakabo banaanshe iyo weerarow dayow iyo way badan yihiin heese dhaadheer oo aada u dhaadheer bay ahaayeen awaankii ugu badnaan allahu naxariista ugu dhintay sahal macalin ciise waa london ku dhintay isagaa de heesihiisa laxanka iyo miraha samayn jiray allah u naxariista naga hooseeya marka may iyo maxaa tiri labadaas luqadoodba ayay heesaha ahaayeen fankii muddo badan ayuu fankii maaragtay 30 sano ayaa dalka burbur ku socday iyo inka badan inta aad maqneedeen bal fankii soomaaliya hadda hadii lagu dhaho qiimee maadaama fanaan weyn oo caan oo dadka jecelyiin ay tahay fanka soomaalida halkeebaad dhigi lehed caaw maya fanka maruu fan maxaad ku qiimeyn lahayd fanka maruu fan ahaa hadda waa dee hadda kadib waxa lasoo abaabulay iyo dee yaryarka dhalinyarada yararka qaar fiicanaa ku jira laakiin fanka xoogiisii wuu dhammaaday fan dee waa artay cigaala maraya dadkii fanaaniinta badi way dhinteen allah u naxariistay abwaaniintii way dhinteen
dadkii qurbaha la wada galay dee nin kastaba danihiis kaloo iska raacday marka fan maanta dee qof intuu usoo jeesto ama business uu ka raadiyey iyo may ilamaha inuu jiro marka xasan adoo raal magaalada muqdisho aad soo gaartay hadda waad imaatay qorshe nooca ah ayaad maaragtay maadaama taageerayaal badan aad leedahay dadka ay ku wada jecel yihiin markuu xasan aadan soo gaarana baraha bulshada maanta waxay ahayd hadalhayntii ugu badnayd soo gaaritaankaaga magaalada muqdisho 30 sano in ka badan wax qorshe ah anima qorsheygu waa waxaa la socdaa wafdiga aljabuuti aan degana haye madaxweynaha jabuuti ay casumeeri ilaa wiilana keen haye xamala tegaynahay haye marka fasax kale aan ku jiro yuruba usii socday haye maadaama caaw inaan la joogno xafladan inta aan joogno madaxweyne farmaajo waa is aragnay prime minister waa is aragnay member of parliament qaar kamida iyo kulli waa is aragnay